Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kooraskeenii farsamada baabuurta. Waxaanu ku guda jirnay cutubkeenii shanaad. Waxaan bilaabanaa insha Allah casharkiisii labaad. Casharka labaad waxaan uga hadli doonaa nidaamka qaboojinta matoorka. Casharkan waxaan soo jeedinayaa anigoo ah Maxamed Xirsi Faarax. Wixii jawaab celina waxaan ugu soo celin kartaan emailka shaashadani ka muuqda. Kooraskan waxaa kala socoteen Somalism Online Academy. Haddii aan u guda galno casharkan. Nidaamka qaboojinta matoorka waa nidaam ay biyuhu ku dhex marayaan balookada matoorka ayaga oo qaboojinaya galaasyada. Galaasyadu waa meesha ay ka dhacdo qaraxa iyo gubashada hawada iyo shidaalka ka dhasha. Biyaha kulul ee soo qaboojiyay matoorka waxa ay dib ugu soo laabanayaan raaytooraha halkaas oo lagu qaboojinayo mar labaad. Raaytooraha biyaha waxa uu leeyahay hawo celiye loogu talagalay in hawada ay marwaxaduhu soo jiidayso aysan bildaroobin. Hawo celiyuhu waxa uu ururiyaa hawada marwaxadda. Waaskada hoose waxay leedahay kaag loogu talagalay in laga daadiyo biyaha ku jira raaytooraha. Haddii la doono in biyaha ku jira raaytooraha la daadiyo, waxay leedahay waaskada hoose meel laga furo oo biyaha laga daadiyo. Waxaa mamnuuc ah in la furo furka raaytooraha gaariga oo kulul. Gaariga oo soconaya shaqeynaya maanta oo dhan haddii furka raaytooraha la kulo waxaa dhici karta in maxaa la oran jiray kulaylku kugu soo boodo oo kale gaariga khatar galo oo wareegga biyuhu u joogsamo. Marka gaarigu intuu qaboobayo waa loo kaadiyaa in la furo furka raaytooraha. Furka raaytooraha godka uu xiro waxa uu leeyahay tuubo la yiraahdo tuubo saa'id. Furka raaytooraha waxa soo gasho tuubo la yiraahdo tuubo saa'id oo biyaha saa'idka ayay ka reebtaa ama dib u celisa. Raaytoorihii waa kan marwaxaddu waxay hawada kasoo jiidaysaa xaggan banaanka gaariga kasoo jiidaysaa. Waxay soo dhex marinaysaa meelaha shinnida soo dhex marinaysaa. Xaggan waxa ku yaala shabaq baa ku yaala. Wuxuuna u ogolaanayaa hawada ay marwaxaddan soo nuugayso inay xaggan kusoo dhex maraan si aayar ah si hawadaasi ay u qaboojiso biyaha dhex maraya shabaqa raaytooraha. Waa kan halkan u jeedaan waa biyihii qabowga. Waxaan buluugga ah waa biyihii qabowga. Kuwaasna waa biyihii kululaa. Biyaha kulul raaytooraha waxay kasoo galaan kor bay kasoo galaan. Biyaha qabowna raaytooraha waxay ka baxaan hoos bay ka baxaan. Matoorku waa shay ay gudihiisa ka socdaan olol ay dhaliyaan bastomadu. Waxa uuna u baahan yahay qaboojin kala ah. Matoorka oo ku qabooba biyo iyo hawo iyo matoorka ku qabooba hawo kaliya. Matoorada yararkaas iyo matoorada la yiraahdo kuwan mootooyinka oo kale hawo kaliya ay ku qaboobaan. Halka matooradan gaariyaasha ay ku qaboobaan waxaa la yiraahdo hawo iyo biyo. Habka qaboojinta matoorka. Matoorka ku qabooba biyaha iyo hawada. Waxa matoorkaas qaboojiya biyaha sidoo kale waxa biyaha qaboojiya hawada. Biyihii waxa qaboojinaya hawo. Biyihii qabowna waxay sii qaboojinayaan matoorka gaariga. Haddii biyuhu waayaan hawo qaboojisa, biyuhu ma qaboojinayaan matoorka. Marka biyaha waa in marka hore la soo qaboojiyaa oo hawada soo qaboojisa kadib si matoorka u qaboojiya. Wareegga biyaha. Biyuhu waxay qaboojiyaan matoorka waxa ayna ku qaboojiyaan qaab wareeg ah. Wareeggu waa in biyaha qabow matoorka galaan kadibna ay kasoo baxaan ayagoo kulul kadibna ay dib ugu soo laabtaan ayagoo qabow. Wareeggaas waxaa sameynaya flashta biyaha. Flashta biyaha soo gala waa biyo qabow waaskada hoose ku jira. Waxa ayna flashtu ku burqinaysaa balookada dhuumaha balookada dhex mara. Kadib biyuhu waxay ku dhex wareegayaan matoorka gudihiisa waxa ayna ka baxayaan qaybta sare ee balookada ayagoo kulul. Waxayna sii marayaan hoosbeebka biyaha kadib waxay galayaan raaytooraha. Hoosbeebka sare bay sii marayaan kadib raaytooraha galayaan. Biyahaas marka waa biyo xajmi leh. Biyaha raaytooraha kusoo laabanaya biyo xajmi leh. Biyuhu marka ay soo galaan waaskada sare waxay raacayaan beebab yaryar oo ka tagaya waaskada sare aadayana waaskada hoose. Beebabkaas biyaha dhex maray waa biyo xajmigoodu yar yahay. Biyihii xajmigooda ayagoo badnaa bay waaskada sare kusoo dagayaan
markay waaskada hoose aadayaan waxay sii marayaan beebabkaas. Marka biyaha beebabka maraya waa biyo xajmigoodu u yaryahay. Biyuhu waxay matoorka ku qaboojiyaan wareeg ay ku dhex wareegayaan iyagoo qaboojinaya olyada uu matoorku isticmaalo, galaasyada matoorka iyo dhammaan matoorka qaybihiisa. Biyaha qabow waxay matoorka ka soo galaan hoos beebka hoose. Biyaha kululna waxay ka baxaan hoos beebka sare. Biyaha kulul waxay dib ugu soo laabtaan matoorka iyagoo qaboobay. Faa'iidada wareegga biyuhu waa in ay baxaan biyaha kulul oo ay soo galaan iyagoo qaboobay. Yacni faa'iidadoodu waxa weeye matoorkii biyo qabow waa soo galay. Biyihii matoorkii qaraxii iyo gubashadii ka dhacayay meelahay ka dhacayeen bay soo qaboojiyeen. Marka biyihii kulaylkii balookada soo qaadanayaan, biyihii oo kulul baa wax ku soo laabanayaan raytooraha, kadib way qaboobayaan oo raytoorihii baa qaboojinaya. Faa'iidadoodu waxa weeye inay soo qaboojiyaan matoorka iyagoo qaboobay haddana kusoo laabtaan isla matoorka si ay mar kale u qaboojiyaan. Biyaha soo galaya raytooraha waa biyo kulul oo xajmi leh. Biyahaas markay soo galaan waaskada sare ee raytooraha waxa dhumaya awoodoodii waxayna raacayaan beebab yaryar oo tiro badan. Beebabkaas dhexdooda waxaa ku jira shinni ama shabaq loogu talagalay in hawada marawaxaddu soo jiidayso ay ku dhex maraan si aayar. Beebabka yararka shabaq yar ama shinni baa ku dhex jirta, taas u oggolaanaysa hawadii marawaxaddu soo nuugisay in si aayar ugu dhex marto. Aayarkaas wuxuu ka saacidayaa in biyihii qaboobaan. Markaas kadib bay u daataan ama isugu tagaan waaskada hoose, waxaana soo laabanaya xajmigoodii, waxayna waaskada imaanayaan iyagoo qaboobay. Markii ay soo maraan beebabka yararka biyuhu way soo qaboobayaan, iyagoo qaboobay bay waxay kusoo daadanayaan waaskada hoose. Kadib falashta biyaha ayaa burqanaysa, dhuumaha balookada ku burqanaysa. Hawada waxay qaboojisaa biyaha. Haddii ay biyuhu helin hawo, waxba ma qaboojin karaan. Hawada waxaa dhaliya marawaxadda. Marawaxaddu waxa ay hawada ka soo jiidaa gaariga bannaankiisa, waxayna hawada soo dhex marsiisaa raytooraha biyaha. Marawaxaddu waxay u qaybsamaan laba qaybood: marawaxad ay wareejiyaan badhado ama shingiye, iyo marawaxad ay wareejiso dab. Marawaxadda ay wareejiyaan badhaduhu ama shingiyuhu waxaa isticmaala intooda badan baabuurta waaweyn. Marawaxadda dabka wareejiyana waxaa intooda badan isticmaala baabuurta yaryar. Ugu dambeyn ama gunaanad, nidaamka qaboojintu waa nidaam lagu qaboojinayo kulaylka uu samaynayo qaraxa ay dhaliyeen bastomadu. Biyaha qaboojiya matoorka waxaa soo qaboojiya hawada ay soo nuugto marawaxadda bannaanka baabuurka ay ka keentay. Marawaxaddu hawada waxay ka keenaysaa bannaanka baabuurka ka keenaysaa. Waxay soo dhex marsiinaysaa raytooraha si biyaha u qaboojiso. Haddii biyuhu waayaan hawo qaboojisa, waxba ma ay qaboojinayaan. Biyuhu waa inay helaan hawo qaboojisa. Dhammaad casharkeennii intaas ayuu ku egyahay. Insha Allah intaan ku kulmi doonno casharkan cashar ku xiga. Aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.